الله ونحرسته خالد محمد آدن وأفريقيا تمشيرها أيها كجيري بل وين وكل حيا لا حافظ الدامية مجالات هرجيسة ميت كالمهير ومدة ساعة على لا أيها مركز دم اللي يرضى حافظ داسي وحي كجوليستين إن بيها كسر صاران هو يقدر شيء المهير أمر جيسنا أيها وحي لحظة شيء تلفزيون كهون كيبل لكن تحمل عن لصو كوريا اللصو دبعتو ايا عاود كسر هابين إنه كي تعصر عن أول دقيقة قريدي سنة فيسبوك ما قبل كصابي فيسبوك شعب كدجن حافظ الدامي عيا شيئين بلغني ودب وينكوهايو sidoo kalena uu kala xidhay xaafada oo xataa iskuulkii xaafadu uu xaniban yahay biyaha fadhiya balligan markii meesha dadku tumanaan deeri balligi baa laqay ayaan hawdka ka soo galay balligi waan baadiga meel ay caagadayo ku xiran yihiin garan waaye oo ayaan cabaar aan u daalan xeeqsanna ayaan hoos u qurtay soo qaadban jir waan soo qaad garwaay dhalinyarta halkan la taagan oo goobta joogta ayaan fiimaada goobtii afarta kaarkoona laga istaago sida ayaa ilaahay nagu dhiiriyay aan ku dhiirishanay meedkiina lagu saarnay waxa weeye madaxweynuhu intuu yimi oo halka yimi uu maayarka xisaaran ka jabi oo dadka ku gadaamana dadku qaaday wada qaada oo hal la raro ayaan waxa laga fuliyaari jiray gudaafad nadaafad daro wadiga naarka ubadkay ku daadanayo ubadkayga iskuuladu ma talaabi karaan gudaafad iyo balli baa xidhay waxaan dawladda ka codsanaynaa si degdeg ah inay wax nooga qabato haddii aanay wax ma nooga qabanina dad doorasho dambe waa nooga baahan tahay waan diidayna marka waa ku maranaysaa soo ma aragtid waa ku qaar كذا قري هذا فكرنا بيس عين قوي داعون ما كتلاعي داعون يا كتلاعي ولا جار ومين نقطة ما قالتي توك تابين والببل أنت كنت بعث ما يدك كمان هورك وين كذا تسرقني يلا أنت كلام بيدك كريد ما ضيعنا وحنا كذا كذا سوق عيا ما قالتي حاسيش كوي دك نارك وحوي الدولة تروح كعسنا بلي هناك سيدس هذيك الأشياء كذا عمرها وقعت تدخل قاعدة قاعدة دولة وحنا لا صدق دقة بلي قاعدة نقصي يوم ما يركوها في اليوم مدعوين أمريكيس مع الماير بانونا وحوي بالعسد واجيك تدخل سوق xogayaha cadaaladda xisbiga wadani barkhad jaamac batuun oo isagu kamid ahaa dadkii ilmaha yar meydkiisa ka soo saaray biyaha ayaa madaxweynaha Soomaaliland fariintan u diray muhiima madaxweynuhu runtii si qiimo leh u yeelay madaxweynuhu halkan buu yimid madaxweynuhu waad ku mahadsan tahay inaad daami timaado inaad aragto baylahda bulshada daami haysata inaad amar ku bixisay in balliga maanta nafdan ajasheeda ay ku baxday inaad tiri hal la jabiyo oo dhibaatada aad sii garanaysay de kontonino dawladda ka tirsan baa kula socday hadalkaagii lagama hoos qaadin maanta qof baa dhintay barina islaam baa dhiman saadamana oday baa dhiman waxayna ku dhimanayaan waa bartaa qof qaranka ka dhintana waad dareemi karaysaa qiimo darrada ay nagu tahay iskuulkii xaafadda ku yaalay ballaga saaxiday haddii qof xanuunsado uu siraada halka soo mar lama soo mari karayo taa kililka laga soo wareega ama taa kale laga soo wareega marka deegaanka xaafaduna wixii inta ka badan baa indhow taliyaga xashiishkiis ka guray xaafadan dayac badan baa haya waxa soo qashina iyo biyaha imika isku dhacay daacuun baa ka dhalanaya dad baa ku dhiman doona saacadihii lagu hawlanaa sidii ilmaha yar balliga looga soo saari lahaa ma ay jirin cid xukuumadda ka tirsan oo goobta soo gaadhay balligan Allah u naxariistay uu galabta ku dhintay ilmaha yari ayaa hore waxa uu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo amar ku bixiyay in biyaha halkan jiifa laga sii daayo isla markaasna balliga la aaso laakiin nasiib darro amarkaasi ma uu fulin waxaan farayaa cirku waa tusay balliga inuu buuxa inaanay biyuhu magaalada ku jabin ee biyaha florka ah la furo dadka deganna sidii meel loo geyn lahaa iyagana khatarta looga badbaadin lahaa kuwa kale looga badbaadin lahaa qabataa qorshayaashiina kale ee magaalada iyo waxa qabanaysaan idinka leh waa hawshiina waydi sugaysaa qorshaha fog laakiin 4 saacadood inuu joogno daruurta taagan iyo biyaha buuxa iyo magaalada waana kala furtaa ama habeen shaqeeya ama maalin shaqeeya ciidanka doontaan gurmad u dirsada hadaa ciidanka xoog u baahantiin hadaa u baahantiin buldoosaro haduu shicib leeyahay hadii dawladdu hayso dhammaan inta loo gurmado magaalada sida ugu dhiiray biyahaas aan ugu fatahayn ayaan ka rabnaa Afrika soo socda tama cadow Xasan Sulaymaan Haruun Xasan Galeyd wararka Hookibal magaalada Hargeysa